kusoo dhawaada cashar cusub. Casharkeennii hore waxaynu ku qaadanay definition of derivatives. ilaa hadda waxaynu baranay in f prime of x derivative-ku in lagu heli karo limit as h goes to 0 f of x plus h minus f of x oo loo qaybiyo h. marka ilaa hadda waxaynu baranay in qaanuunka definition of derivatives kan yahay qaanuunkan inuu ka caawinayo inaynu heli karno derivative-ka function kasta aynu u baahannahay. marka hadda waxaynu baranaynaa differentiation rules, qawaaniin laga soo xogtay oo laga keenay qaanuunka kan. qawaaniintaasna waxaynu u isticmaalaynaa waxa weeye qaanuunkan inaynu mar walba isticmaalno aad ayuu dhib badan yahay, aad baynu u adag tahay. marka qawaaniin fudud baynu isticmaalaynaa. kasoo qaad inagu marka hore casharkeennii hore koowaad videogeennii hore waxaynu kusoo qaadanay in f of x hadday tahay x square in f prime of x waxaynu keennay inay tahay 2x inagoo qaanuunka kan isticmaalayna. marka inagoo aan qaanuunkan isticmaalin hadhow markaynu gaarno waxaynu isticmaali doonaa qaanuun la dhaho power rule oo isla markiiba ina siinaya in derivative-ka functionkan uu yahay 2x. yani qawaaniintu marka aynu hadda baranayno ama rules aynu hadda baranayno waxay ka fiican yihiin definition-kan waa ka fiican yihiin. qawaaniintaas si loo helana waxaa la isticmaalay definition-kan. marka haddaan hadda ku bilaabo qaanuunka koowaad oo ah constant. marka kasoo qaad haddaa haysato y equals to c, yani haddaad haysato function sidaan oo kale ah c-na ay tahay real number, ay number caadiya tahay. yani waxay number kastay noqon kartaa 1 2 3 negative number, yani real number waaye, number kastay noqon kartaa. marka isbedelka ama derivative of y equals to c y prime waxay noqonaysaa 0. marka constant marka number haysato derivative-kiisu wuxuu noqonayaa 0. kasoo qaad example ahaan haddaynu haysano y equals to 6 derivative-kii y prime waxay noqonaysaa 0. sidoo kale haddaynu haysano y equals to 2.6 kasoo qaad sidoo kale y prime waxay noqonaysaa iyadoo kale 0. marka sababta ka dambeysana waxay tahay marka hadda ku tuso sawirkeeda kale kasoo qaad kan waxa weeye y axis-ki kanna waa x. haddaan sawiro functionka c y equals to z, yani functionka haddaan sawiro xagga waxa waaye x, xagga waxa waaye y, intana waxa waaye c, yani functionkan waa c. marka y equals to c, yani halkan waa c. marka waxaan arki karnaa qiimo kasta oo x leedahay c way faaligeedu, yani y isma bedelayso. marka slope of the function ama line-kan slope-kiisa waxa waaye 0, yani line-ka dhan isma bedelayo, qiimo kastoo x c way qiimaheedu. marka sidaa darteed slope-ki maadaama uu 0 yahay derivative-na ay slope tahay, differentiation of constant ama derivative of constant waxa weeye waa 0. okay, marka hadda waxaan u gudbaynaa trigonometry functions, sida differentiation loogu sameeyo trigonometry functions. bas intaan gelin waxaan rabaa inaan muraajaciyo ama waxaan rabaa inaan sharaxo calaamadaha derivative-ka. bas kasoo qaada haysato y equals f of x, yani function sida kuna haysataa derivative-ka waxaan baranay in calaamadda ay tahay f prime of x. sidoo kale calaamadda kan waxaa loo qori karaa f prime, waxaa kaloo loo qori karaa y prime, waxaa kaloo loo qori karaa dy dx, kanoo kale waxaa lagu dhawaaqaa dy dx. marka dy dx iyaduna waa derivative oo kale. sidoo kale waxaa loo qori karaa df dx, waxaa kaloo loo qori karaa df of x dx. sidoo kale haddii kasoo qaad functionkan uu yahay x square oo kale waxaa loo qori karaa ddx of x square. marka calaamadahan oo dhan waxay ka mid yihiin calaamadaha derivative-ka, waa iskuda mid. marka calaamadaha kan oo dhan inaad garanayso ama familiar la tahay baa lagaga baahan yahay. okay, marka hadda haddaynu u gudubno trigonometry functions, yani lixdii waynu haysanaa cosine, sin, cosine, tan, cosec, yani kulligood waa wada haysanaa. marka derivative-ka ddx of sin x, derivative-ka muxuu noqonayaa cosine x buu noqonayaa. derivative-ka of cosine x waxay noqonaysaa minus sin x. marka inaga layna kuma baahna sida aynu u helnay, yani layna kama baahna inaynu keeno caddaynta ama proofka sida uu derivative-ka sin of x ay u tahay cosine of x layna kama baahna.
marka si loo keeno waxa la isticmaalo definitionka bas levelka kan calculate lagama baahna inaad garato sida loo keenay ama inaad proof garayso lagama baahna bas kaliya waxa laga baahan yahay inaad garanayso in derivative ka sin of x ay tahay cosine of x tan of x oo kale inay tahay sec square of x marka haddaan sameeyo qaanuun kale oo la dhaho differentiation sum kasoo qaad haddaa haysato y equals f plus g f e g na ay yihiin functions of x marka y prime maxay noqonaysaa waxaanu sameynaynaa derivative-ka xabad baynu sameynaynaa haddii ay haysano laba shay oo la isku daray waxaanu sameynaynaa kan koowaad marka waxay noqonaysaa f prime plus g prime sidoo kale haddayna haysano y equals f minus g y prime waxay noo noqonaysaa f prime minus g prime marka haysato isku dar laba shay oo la isku daray ama dhowr shay hadday noqoto wax rabtaa noqoto halkan laba kaliya qaatay waxay noqonaysaa kan koowaad kan labaad yani xabad baa differentiation-ka ugu sameynaynaa sidoo kale haddii la kala jaray sidoo kale xabad baa differentiation-ka loogu sameynaya qaanuun kalena hadda midka qaanuunka ugu dambeeya hadda videoga kan haddaynu qaanuun kale sameyno hadda ka soo qaad qaanuunka kale wuxuu dhaxayaa ddx of cf of x yani qaanuun saan oo kale yani hadda haysato function lagu dhiftay c na waa real number ama constant number aan isbedelin weye waxay noqonaysaa sida waxaan ka soo saaraynaa sida dibadda oo saarayna kadibna dx f of x yani derivative-ka hadda haysato function lagu dhiftay number constant ah numberka dibadda oo soo saaraynaa kadibna functionkii baynu waxaan ku sameynaynaa differentiation marka aynu example la sameyno inoo cadaynaya ama inoo clear garaynaya si ay qaanuuntan u shaqeeyaaniin kasoo qaad haddaynu haysano y equals sin of x oo laynu ku dhaho find y prime yani y prime bay u baahannahay sin of x baa layna siiyey marka kaloo kale jadwalka baynu ku laabanaynaa sin of x maxaa ognahay in derivative-kiisa tahay cosine of x marka kan waxay noo noqonayaa y prime waxay noqonaysaa y prime waxay noo noqonaysaa cosine of x kasoo qaad example kale haddii layna siiyo y equals 2 sin of x kanoo kale muxuu noqonayaa yani labatan aan ku dhifana waxay ognahay inay constant tahay number marka y prime waxay noqonaysaa labada waa kasoo saarayna kadibna derivative-ka keenayna derivative-ka sin of x waxaa ognahay inay tahay cosine of x marka waxay noqonaysaa cosine of x so kanoo kale maxay noo noqonayaa y prime waxay noo noqonaysaa 2 cosine of x aynu samayno example kale kasoo qaad haddaynu haysano y equals cosine of x plus 7 sin of x marka aduu videoga qabo example-kan isku day kadibna videoga kasoo laabo marka y prime kanoo kale muxuu noqonayaa maadaama ay tahay laba term oo la isku daray kan koowaad waxaan sameynaynaa derivative-kiisii kadibna waxaan sameynaynaa kan labaad marka kan koowaad waa cosine of x marka cosine of x waxaan ka fiirinaynaa jadwalka haddaan ku laabano derivative of cosine of x maxaa weye minus sin of x bay noqonaysaa marka wuxuu noqonayaa minus sin of x oo loo geeyey toddobada waa constant marka dibadda uga baxa u saaraya sin of x waan ognahay sin of x muxuu noqonayaa cosine of x marka cosine of x marka kan wuxuu noqonayaa y prime ten waxay noqonaysaa minus sin of x plus 7 cosine of x marka derivative-ka saan oo kale inoo noqonaya okay aynu samayno example kale okay kasoo qaad haddaynu haysano y equals 3 tan x minus 8 sec x yani tanoo kale ayna siiyey derivative-ka baan u baahannahay marka sidoo kale videoga qabo example-ka aad isku day kadibna videoga kusoo laabo okay marka y prime waxay noo noqonaysaa kan koowaad baan derivative-kiisa sameynaya maadaama 3 ku dhashay 3 dibadda la soo baxaya taanka derivative-kiisii marka taanka wax ka fiirinaynaa jadwalkii marka tan waxay noqonaysaa sec square of x marka tan waxay noo noqonaysaa sec square of x oo laga jaray 8 marka 8 sidoo kale maadaama laba shay la kala jara ay yihiin kan koowaad baan sameynaya kadibna kan labaad baan sameynaya marka hadda 8 dibadda aan la baxay sec baan geenaya sec muxuu inoo noqonayaa
sec wuxuu inoo noqonayaa sec waa kan sec wuxuu inoo noqonayaa sec x tan x sec x tan x sec x tan x marka derivative-keeni wuxuu inoo noqonayaa y prime waxay inoo noqonaysaa 3 sec square x minus 8 sec x tan x marka derivative-kii saan inoo noqonayaa marka qawaaniintan yani hadda haddaynu definitionka tan oo kale isticmaali lahayn maanta dhan bayna ka qaadan lahayn aad bay u dheertahay in tan definition of derivative in lagu keeno marka qawaaniintan waxaynu ku caawinayaan inay isla markiiba derivative-ki keenno marka hadda waxaynu baranay haddii haysano laba shay oo la isku daray ama la kala jaray xabad xabad baynu differentiation u samayn karnaa waxaa kaloo baranay in constant number gooni isu taaga y equals ka soo qaad 7 oo kale inay derivative-ka waa prime 0 to kala baranay waxaa kaloo baranay haddii number constant uu ku dhifsan yahay function-ka in aynu numberka dibadda dhigi karno kadibna aynu samaynayno numberka intaan dibadda dhigano kadibna aynu differentiation ku samaynayno function-ka uu ku dhifsan yahay okay marka video kan intaan ku soo gabagabeynayna video soo socda waxaanu ku qaadanaynaa power rule marka video ka hadda ka heshay like comment subscribe